waxaan gudagelayaa akhrinta qodobadii shirkan ka soo baxay beesha Garxajis Bari iyadoo ogsoon daahfurkii halgankii xornimada dalka ee maalmihii 27 28 29 iyo 30 May ee 1988 ee goobaha Burco Cadaadley Mandheera iyo Buurta Sheekh ee lagula wareegay talisyadii goobahaas joogay beesha iyadoo ayidsan go'aamadii ku dhawaaqida qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 1991 18 May ee ay go'aamada lagaga dhawaaqay Burco una ku dhawaaqay Cabdiraxmaan Axmed Cali go'aamadaas ay ka mid ahaayeen in si siman oo cadaalad ah loo qaybsado khayraadka dalka iyo awoodaha dawladnimo isla markaana aad uga xun cid kasta oo beesha ku cambaaraynaysa inay duminayso qarannimadii ay iyadu dhistay dhiiggeedana ku waraabisay iyadoo aan beeshu marnaba alaabayn halgankii dheeraa ee lagu xureynayay gobolka Sanaag iyo weerihii ahaa nin nool baa dal hadha ee raggii ku dhawaaqi jiray iyadoo inamadoodu u nool yihiin ay haddana ku hadrayaan waxaanu difaacaynaa qarannimada Soomaaliland waxaan leeyahay ama shirkani leeyahay faan ku noqon mayso waxaan qaranka ka difaacayaa cid aanay ishayn iyada oo aad ka gabatay halgankii runta ahaa shirkii beesha Garxajis Bari ee ka dhacay 2, 3 iyo 4 bishan June magaalada Goof isla markaana daba socday shirkii hordhaca ahaa ee 20 bishii shanaad 2018 ee deegaanada Dhuurmadare waxay soo saartay go'aamadan beesha Garxajis Bari mana oga mana hayso cid duulaan ku ah qarannimada Soomaaliland dalalka deriska la iyo beesha caalamka toona 2 xubnaha ciidanka qaranka uga tegay tabasho ay qabaan awgeed ee uu ka mid yahay Korneyl Caare waxay ka mid yihiin beesha waxayna ku jiraan talada madax dhaqameedka iyo gacantooda iyaga ayayna la go'an yihiin waxay beeshu tabashadeeda culus u maraysaa hab waafaqsan shuruucda dalka dastuurka aan ka baxsanayn xaydaabka qarannimada waa qodobka afraad weeye beesha Garxajis Bari waxay aad uga xun tahay dagaaladii soo noqnoqday ee deegaamada Ceel Afweyn ayna ku fashilmeen egeys wasiir Maxamuud Xaashi iyo wasiir Maxamed Kaahin iyo guddidii uu xulay gudoomiye Saleebaan waxay beesha biciiday 14 jeer weerar ku qaaday beesha Sacad Yoonis weerarkaas soo geystay khasaare nafeed iyo mid maalba weeraradaas ay xakameyn waayeen qabanna waayeen kitaabka dhaarta wacadkii boonankii xidhayaashoodii iyo go'aamadii kale ee laga soo saaray arrintan ee ay fulinteeda dawladdu lahaydba sidoo kale waxay beeshu si gaara u xusaysaa dhacdadii ugu dambeysay ee lagu bartilmaameedsaday laguna laayay rag ka tirsan raggii halgamayaashii qarankan xureeyay iyo xubno ka tirsan ciidamada dawladda oo markaa labisnaa shaqadii dawladana hayay ayna dilka fuliyeen xubno ka tirsan iyaguna ciidamada qaranka oo laakiin ka mid ahaa Maleeshiya beeleed waxay beeshani madaxweyne Muuse ugu baaqaysaa waxay beeshani madaxweynaha ugu baaqaysaa ama ka sugaysaa
inuu cid kasta oo xakame u noqon karta beeshaas iyo xal kasta oo xakame u noqon kara ama wax kasta oo lagu dhaarin karo waxay beeshani ka sugaysaa madaxweynaha oo keliya wabilaahi tawfiiq